mudanayaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gali jirnay waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yiqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayb mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Somaliland iyo Puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii alla idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacweynaha Puntland tan iyo markii laascaanood la qabsaday reer sool waxay ku jireen dulnimo cagajuglayn isku dir iyo dil joogtaa maantana waxaa loogu daray caburin xabsi joogtaa in la yiraahdo dalka malihdin ee iskaga guura sidaa darteed waxaa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dowladdu wada shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sano ee soo socda musabbixi waxaan leeyahay xaasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa wadahadal ayaan federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa ixtiraaf baan doonayaa horaa loo yiri afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay musabbixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka soolna siiyey waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha wuxuu ahaa gumaysi maalmo joogay oo aan iska xoreynay kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiigooda u huray naftoodan u hibeeyay si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga haddaba musabbixi waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo laascaano ma aha London xudunna ma aha Birmingham taleexna ma aha Cardiff shacabka Somaliland dowladda Puntland waxay u cadeynaysaa inay ula diyaarnahay walaaltinimo daris wanaag iyo wada noolaansho buuxa waxaana na farax gelinaya sharaftiina iyo karaamadiina shacabka Somaliland waxaan u sheegaynaa musabbixi Puntland kaliya dhibaato kuma aha waxaad u baahan tihiin in laga badbaadiyo aad naftiina ka badbaadisaan dhibta uu idinku hayo ugu dambeyntii dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduudii ay dowladihii Soomaaliya u kala samaysay gobolada Togdheer iyo Sool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn aamus lama yiraahdo beentaas yaan waqti la iskaga qaadin laascaanood iyo Garowe xuduud ma kala yeelan doonaan taa la ogaado